حوالي 3 maalmood ayaan ilmahayga walaalka salkiisa ka qayleysaa aniguna aan ka dul qayliya waxa weeyaan dawlad waxaan ka codsanayaa inuu ilaahay meydkeedu iga soo saaro dawladda ilaahay ila qabto oo iga soo saaraan waxba way la iga qaban waayay degmada waanu sheegay waanu sheegay gobolka waanu sheegay waxba waa la iga qaban waayay waxa weeyaan halka dhibaato ay ku haysatay anigi waan raacaya qobadkayga yar way raacaya waxa weeyaan meena wararki dhaxdeeda mu ka dhaxqaylaya ana dushi man ka qaylaya ilaahay waxa weeyaan nafbaxday saddex waxay dhaxbarday lixdii maalmood lixdii saacadood nafbaxday 4 habeen iyo 4 maalmood baan dul fadhiyaa on ka dulooyaya waxa weey gurma degdega waan waayay inuu ilaahay bismillahirrahmanirrahim ali waliga gabadha ilaahay baa lahay gabadhani waa gabadh yar afar jira waxay soo raacday gabadha yar ee walaalaheeda marka xoolay la soo raacday markaani oo Ramadan bayda ama safeeda la yiri waxa ku dhacday meel ishin markaa nimatay waxa weeyaan meesha markaa hoos weynay weynay markaa weyn dhawaaqayso waxay leedahay Allah bayga bixiya Allahooy iga bixiya bay diyatu ku ay ku qaylinaysa markaa waan qaylinay tolkii meesha joogay dhowr santar oo meesha yaala waa soo nimatay dhan walba ka jixna wada aragtaa masaan u jeexjeexnay daytaanka yadi waxba ka qaadi weynay waxaan nahay degmada santarka gabagaba degmada Tulli Guleed gobolka Faafareed baan nahay santarkii waan u qaylinay degmadii waan ku qaylinay dawlad deegaanka waan ku qaylinay wax alla wax nooga qabto meesha ma aanan arag waabad aragtaan meeshan ila ku aragtaan oo baan ku qoray bal daboosho waan isleenahay halkaan tii weynay waxa weeyaan taas baan ku soo ilno daadkaasi waa intuu jeexo bilaa hoosta idinka tuuri baa isneeday dawladii waan ku qalinay waabad aragtaan kaara marna waatan dawladda sidii soo aragtaan cid alla cid wax nooga qabata waan weynay dawlad waan ku qalinay wax alla wax noo qabto ku daboola baan niraydiba ku daboola ayaa baan caruurtii wiilkii aan ilmaadeerka ahayn meesha uu ku soo rooraya uu ku dhacaya caruurta gabadha la dhashay waa ku dhacayaan gabadhii dhashay dimashada ahayd waa ku dhacaysaa imisa masiiba ayaa nagu dhacay ilmiha meesha naga jira oo si alla saan uga soo bixisay garan laanaay oo hooyo maxaan cunaa aaba maxaan cabaa alla aaba iga bixidahays caaniyan meesha ugu ridin caani waa garan marayartii labada garab buu ka hayaa oo dagacmay kor taagay way qayliisay yartii golkay 3 habeen meesha ka qayliisay marka dambe dhawaaqeedii waa weynay inay dhimatay inay ilaa hadda nooshahay mooyaan xitaa mas baa naga soo baxay meesha wallahi billahi waa aragtaan saan u jeexjeexnay itaalkii dadka bilaabay shacab soo jeexjeexay dalkiisa oo ku arkaan meesha wax ilaa hadda wax dawlad oo meesha looga timiday ma jirto anagu dawlad baan leenahay oo oran karno ilaahay baan beegsanaa ilaahay baa weyne ilaahay baan la beegsanaa kiina siiyay ayaa in naga meelo caruurta kale nooga joojiyo ninka dhala iyo hooyada gabadhii maanta dhashay inuu qalbigooda ka meelo tanna de isaga kolka hore abuuray isaga ugu tala galay ilaahay mooyaan cid aan u maanta u eersanay ma jirto ayaan leenahay anagu godkan inii muuqday waa halkii masiibadu ay ka dhacday gabadha yarada 3 jirka ahayd 4 jirka ahayd Mumtaaz Cabdi Jaax sida inii muuqata halkaas ayay ku dhex jirtaa ilaa hadda muddo 3 cisho ayay ku jirtay iyo 3deedii habeen maanta afar ah 3 cisho iyo 3 maalmood way hadlaysay way qayliysay waxa aabooday haysay halla caawiye lahayd wax gurmada shacabka awoodooda way ka baxsantahay sida inii muuqata togan aadka u waaweyn waxa caawimaanta ay heli lahayd waxay ahayd dawladeed laakiin way ku naf baxday dowsar la'aan baa u dhimatay iyo in xukuumadda oo runtii 3 cishanada shacabku way qeyliyeen si gabadha loo badbaadiyo ilaa haddana wax gurmada meenelna way ku naf baxday meedkeegina wuu ku dhex jiraa ilaa hadda